بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل أسباب سجود السهو 4 فصل كان مصنف كوحو كغه الله أسبابها كان سجود السهو أسباب سجود السهو أسبابتا كانت 4 أفر شيء ayaa sujuudu sahwiga keena buu yiri musannifku raxmatullaahi calayh culimmadu waa soo koobaan afartaasoo labayba ku soo koobaanoo labadaas waxay yidhaahdaan tarku ma'muurin bih waxaa keena sujuudu sahwiga shay lays amray oo laga tegey aw ficlu manhiyin canhu ama wax la iska reebay falidiisa labadaasuu mid ku imaanaya labadaas sababa bay isugu imaanaysaa ama shay lays amray oo laga tegey ama shay la iska nahiyey oo lala yimid marka xukunka sujuudu sahwigu sunno weeye oo haddii hadda wax sujuudu sahwi keeno qofku uu la yimaado markaasna uusa sujuudinin salaadiisa u jidhaa laakiin in la sujuudaa fiican maxaa yeelay khalalkii salaada kabay bay baabi'inaysaa tirtiraysaa maxalkeeduna waa qabla salaam inta uusa qofku salaada ka bixinin buu la imaanayaa markii salaamta ma wax kale aysan u harinin buu sujuudu sahwiga la imaanayaa markaa kadib buu salaadii ka baxaya waana laba sujuudood kaliya sujuudaas markaa sababaha keenaya ay afar weeye الأول كوه الريا ترك بعض من أبعاد الصلاة بعض كتجديس ويا أو صلاة أبعاش هذا كمذا صلاة أبعاش هذا بعض كمذا ولا جتري ويا كوه الريا بعض جمر كم حية بعض جوها ويا سننت صلاة دحية إذا دعاه بالله الله كلا قاذا قارو حلقوا مجعب أبعاد وقار كسجود سهو قالوا كبيه سيدا قنوتك إياه التحيات كهري أنت كلانا واحد ليرى هيئات takbiiraadka ka mida tasbiixda ka mida gacmo korqaadka ka mida suuradda la akhriyaa ka mida waxaasoo dhan waxa weeye waa hay-aad marka sunnaha wixii sujuudu sahwi lagu kabo baa waxaa la yidhaahdaa bacdi waxaana bacdi loo leeyahay xaqiiq ahaan bacdigu waa rukniga baa xaqiiq ahaan bacdi loo isticmaalaa marka sujuudu sahwiga sunnayaashii keenayeyna waxaa loo bixiyey abcaad maxaa loogu bixiyey waxaa ka dhexeeya labadaas jabri mid kasta kamid buu u baahan yahay haddii rukni laga tago rukniga booskiis waa la buuxinaya sayoo kale la keenaya haddii laga tago bacd abcaasha sunayaashaasna waxaa lagu kabayaa booskoodii sujuudu sahwi marka maadaama mid kasta aan laga tegayne haddii laga tago midna booskiisii la buuxinayo midna kabid loo samaynayo yaa waxaa loogu magacaabay abcaadooyin marka abcaashu waa sunayaasha sujuudu sahwiga le wey oo sida qunuudka iyo ataxiyaadka hore bacdi ka tegitaankiis oo salaada abcaasheeda ka mid a ataxiyaadka horuu ka tegey kasbu uga tegey ama sahwi uga tegey qunuudkuna waa la mid aw bacdilbacdi ama bacdigii kulli kama tegin qayb ka midu ka tegey ataxiyaadkii qayb ka midu ka tegey qunuudkii qayb ka midu ka tegey markaasna waxaa laga rabaa sujuudu sahwi baa laga rabaa athaani ka labaad ficlu maa shay la falidiis weeye yubdilu camduhu camdigiisu salaada uu burinayo walaa yubdilu sahwuhu laakiin sahwigiisu uusa burinaynin idaa facalahu naasiyan markii qofku uu falo isagoo hilmaansan ka labaad waxa weeye musanifku raxmatullaahi calayhi waa shay haddii kas loo sameeyo salaadu ku burayso shaygaa markii kas loo sameeyo salaadu ay ku burayso sahwigiisuna uusa burinaynin shay sahwigiisu burinayaa jira markii qofku hilmaan uu sameeyo sujuudu sahwi laga rabaa shaygaan salaadu waa ku buraysaa haddii kas loo sameeyo sahwigiisa laakiin salaadu ku buri mayso qofkii hadduu shaygaa hilmaan u sameeyo sujuudu sahwi baa laga rabaa oo waa maxay tusaale ahaan waxa weeye wuxuu la yimid qofkii rukni dheeraaduu la yimid kasna ulama imaan hilmaan buu ula yimid ragcaddan buu la yimid hilmaan buu ula yimid hadduu kasula imaan lahaa salaaddu waa ku buraysaa laakiin sahwiga ilowga ah oo halmaankaa salaaddii ku buri mayso marka sujuudu sahwi baa laga rabaa shayga noocaas waa kii labaad marka sujuudu sahwiga wax aliya wixii salaada khalal oo dhacayaa looga jeedaa dhexdeeda waxaa sahwiba iyasa u dhicine macnaha sujuudu sahwi baa la sunneeyaa wixii sujuudu sahwigaas macnaha looga jeeda waxa weeye yacni waa wax aliya wixii salaada khalal oo ku yimaada mutlaqul khalal baa loo jeedaa ee wixii hilmaan kaliya ku yimaada maaha waxyaala kas loo sameeyaa sujuudu sahwiga loo sunneeyaa in loola yimaado sida hadda kuwaan soo dhaafanay bacdigii buu kas uga tegay sujuudu sahwi baa laga rabaa marka macnuhu maaha hilmaan kaliyuu ku imaanayaa sujuudu sahwiga ee waxaa loola jeedaa waxyaalaha khalalka salaada dhexdeeda dhacaya baa keenaya ka saddexaad waxa weye athaalithu midka saddexaad naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxalli naqlu ruknin weeye rukni raridiis ruknigaasoo qowliyin qowli ah ilaa hayri maxallihi loo raray maxalkiisi meel aan hayn ka saddexaadoo sujuudu sahwiga keenaya waxa weeye rukni qowliyaa la raray
ilaa hayri maxalihi baa loo raray sujuudu sahwi imaanaya oo waa maxay faatixadii buu fadhi ku akhriyey ama rukuucduu ku akhriyey ama sujuudduuba ku akhriyey markaas sujuudu sahwi baa laga rabaa naqlu rukni raritaankiis qowliyin oo qowliga ilaa hayri maxalihi booskiisii meel aan hayn uu raro marka haddii ruknigaas la raro qowliga oo booskiisii meel aan hayn la geeyo sujuudu sahwi imaanaya marka labaa loo kala qaadayaa qaar waxa weeye haddii kama loola yimaado rukni qowliya booskiisii meel ahayn kama loo geeyo aysa kas ahayn sujuudu sahwiga waa la rabaa qaarna waxa weeye haddii kas loo geeyo salaadaba ku buraysa qaarna kaskeeda sujuudu sahwiga waa loola imaanaya oo waa maxay takbiiratulixraamkii iyo salaamtii maxalkoodii meel aan ahayn haddii lagula yimaado kas loola yimaado salaadaba buraysa haddii laakiin salaamtii kas uusa ula imaan maxalkeedii meel aan ahayn buu kama ula yimid tusaale ahaan waxa weeye salaaddii inuu dhammaatay buu mooday markaasuu assalaamu calaykum buu iska yidhi imaamkiisii oo masbuuq buu ahaa imaamkiiba assalaamu calaykum yidhi isagiina assalaamu calaykum buu yidhi markaas wuxuu u mooday in salaaddii u dhammaatay oo kale markaasuu ogaada salaaddii in wuxuu harsan yahay salaaddii uu ka baxay assalaamu calaykum buu leeyihin markaas sujuudu sahwi ee salaamtaas kama buu ula yimid soo maaha sujuudu sahwi waa loo sunneeya laakiin faatixada iyo ataxiyaadka iyo hore iyo haddii maxalkoodii meel aan ahayn uu ku akhriyo faatixada hadduu maxalkeedii meel ahayn uu ku akhriyo kasna ugu akhriyo iyadoo salaaddii burmayso sujuudu sahwi baa loo sunneeya marka culimmadu waxay yidhaahdaan madluubka qowliga ah oo maxalkiisa laga raray saddex buu noqonayaa mid waa manquul waana madluub qowliya inuu rukni yahay iyo inuu bacdu yahay iyo inuu hay-ayaha loo kala qaadaya hadduu rukni yahay waa kaa aan ka hadalnay sujuudu sahwi waa loo rabaa ilaa takbiiratulixraamka iyo salaamta oo iyaga hadduu kas ula yimaado salaaddaa ka buraysa laakiin haddii salaamta iyo kama uu ula yimaado maxalkeedii meel aan hayn sujuudu sahwi waa loo sunneeya waxaa kuu soo haray bacdiga ataxiyaadka iyo qunuudka meeshoodii meel ahayn hadduu geeyo qunuudkana biniyati qunuud ahaan isagoo niyeysan uu mooskiisii meel aan hayn geeyo isagana sujuudu sahwi waa laga rabaa hay-aadkii baa kuu soo haray hay-aadkii hadduu booskoodii meel aan hayn geeyo imaamu rimli wuxuu leeyahy wax sujuudu sahwiya ma lahan laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay tasbiixaadkii iyo kuwa yowgaas booskoodii meel ahayn hadduu geeyo uuna ku geeyey tasbiixdii ahaanteedii niyeysashadeedii isagoo subxaana rabbiyal cadiim wa bixamdihi buu rukuucdii meel aan ahayn ku yiri marka uu leeyahayna waa wuxuu aaminsan yahay sunnihii rukuucda inuu yahay markaa sujuudu sahwi baa laga rabaa ibnu xajar leeyahay laakiin rimligu wuxuu leeyahay marna hay-aadka qowliga oo madluubka booskoodii meelahan hadduu ku sheego marna sujuudu sahwi lagama rabo saddexdaas u kala qaadaan arraabicu ka afraad iiqaacu rukni lirididiis weeye ruknigaasoo ficiliyin ficila maa ixtimaali ziyaada iyadoo u siiroodo maceed uu rido ka afraad waa maxay ka afraad waxa weeye waa rukni buu la yimid ruknigaasoo ficliya weliba maa ixtimaali ziyaadati ay maca taradudi fi ziyaadati inuu ziyaadanahay way suurooda waa ixtimaashaa oo waa maxay rukuucdiibu wuxuu isiri lama aada imaan amaada rukuucdii aadan hadda rukuucin buu isirid rukuucdii hadda inuusan rukuucin baa laga soo qaadaya rukuuc kalaa laga raba inuu la yimaado rukuucdaa kale maxay ixtimaashaa ziyaada ixtimaashaa sujuud sahwi waa laga rabaa markuu la yimaado ragcaddii afraad isagoo maraya buu wuxuu isiri ragcaddii afraad baa mise waa tii saddexaad afraad buu ka soo qaadaya ragcaddiisaas buu tukanaya ragcad kaloo shanaad ragcad kale uu istaagaya ragcaddaa kale hadda inay shanaad tahayna waa suurtagal inay afraad tahayna waa suurtagal maa ixtimaali ziyaadati uu sameeyo idan sujuud sahwi baa laga rabaa arraabicu iiqaacu rukni riditaankiis weeye ficiliyin oo ficliya maa ixtimaali ziyaadati ziyaada suurowgeed maceeda walow hadda waxaa leeyahay markaa uu ficilkaas samaynayo ruknigaas haddii uu taradad ku sameeyey markaas maa ixtimaali ziyaadati buu ku sameeyey intuuna ka bixin salaadiina shakigii baa ka zuulay sujuudu sahwi baa laga rabaa oo waa maxay ragcaddii afraad isagoo maraya buu shakiyey wuxuu ku shakiyey ragcaddaani ma afraad baa mise maahe waa shanaad tusaale ahaan ama maahe ragcaddii saddexaad isagoo maraya buu wuxuu ku shakiyey ragcadda ama tii saddexaadda mise waa tii afraad saddexaad buu ka soo qaadaya ragcadda ama tii saddexaadda mise waa tii afraad saddexaad buu ka soo qaadaya ragcadda afraad buu istaagay taa waa dhamaystay tii afraad buu istaagay markaa midda afraad uu istaago maxaa markaas niyadiisu noqonaysaa ma afraadba mise waa shanaad bay maraysaa markaas intuusan weli salaaddii ka bixinin buu wuxuu ogaaday inay ragcaddaani afraad tahay
sujuud sahwi laga rabaa. Sujuud sahwi xagee ka socdaa? Wuxuu ka socdaa ragcadan afraad markuu sameynayay baa waxa ku jiray taraddud ah ama afraadda mise waa shanaad ziyaada marka ihtimaash marka sujuud sahwi laga rabaa. laakiin waxa leeyahay shaygan uu sameynayo oo taraddudka ku sameynayo haduu ziyaado ihtimaalin ma ihtimaal ziyaad shardi way haduu ziyaado ihtimaalin sujuud sahwi laga rabo. waa maxay ragcadii saddexaad isagoo maraya wuxuu ku shakiyay ragcadan ma saddexaad ama afraad nafsul amarkana saddexaad weeye ragcada saddexaad ka soo qaadaya intuu iyadii wili ka bixinin saddexaad ay soo dhamaanin oo afraad uu guda gelinin ba shakigi ka bax oo wuxuu ogaaday ragcadaas inay saddexaad tahay bes sujuud sahwi hadhow la imaan mayo. maxaa yeelay taraddudkaani ziyaado marna ma ihtimaalin hadii la yiraahdo saddexaad oo la oran lahaa iyo hadii kale afraad la oran baa afraad waa laga rabo ziyaado marna ma jirin marka taas sujuud sahwi ma leh. laakiin isagoo shakiga ku jira haduu raabica uu istaago raabicadaas markaas waxay maraysaa taraddudkiisa wuxuu marayaa ma raabica mise waa khaamiso walow intuu raabica ka bixinba shakiga ka zuulay sujuud sahwi waa laga rabaa. maxaa yeelay ficilka markuu sameynayay ziyaado ihtimaalkeeda baa ku jira isaga saasuu ku taradduday. marka afarta shay musannifku inoo sheegay raxmatullaahi calayhi oo ah asbaabta keena sujuud sahwiga. faslun abcaadu salaati sab'a salaada bacdiyaalkeedu 7 weeye macna sunnayaasheeda sujuud sahwiga lagu kabayaay 7 weeye. musannifku 7 inoo ku sheegay laakiin culimadu waa badiyaan oo waxay gaarsiiyaan ilaa 20 baa la gaarsiiyaa isagu laakiin 7 meeshana ku sheegaya 20 kaas wuxuu noqonayaa qunuudka 14 baa ka imaanaysa ataxiyaadka horna waxa ka imaanaysa 6 marka 20 ba isku noqonaysa. qunuudka 14 ka imaanaya waxa weeye qunuudka alfaadiisa 1 iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salaamta nabiga la salaamayo iyo salaada aalka lagu saleeyo qunuudka dhexdiisa iyo salaamta aalka la salaamayo qunuudka dhexdiisa iyo salaada asxaabta la salaamayo qunuudka iyo salaamta asxaabta la salaamayo 7 qowl iyo 7 istaagoodi mid kasta qiyaam buu leeyahay 14 bay ku noqonayaan. waa qunuudka iyo qiyaamkiisa waa 2 waa salaada nabiga lagu saleeyo qunuudka dhexdiisa iyo istaagiisa waa salaamta nabiga la salaamayo iyo istaageeda inta salaamta la akhrinayo waa la taagan yahay taagnidaasi abcaasha kamid salaada aalka lagu saliyo iyo istaageeda salaamta aalka la salaamo iyo istaageeda salaada asxaabta lagu saliyo iyo istaageeda iyo salaamta asxaabta la salaamo iyo istaageeda 7daas iyo istaagyaashooda waxa weeye waa 14 kaas 7 meelood min laba weeye 7 qow alfaada iyo 7 istaag oo ileeyihiin weeye halka waa 14. ataxiyaadkana waxa ka imaanaysa 6 oo muxuu yahay tashahhudka hore iyo fadhigiisa salaada lagu saliyo tashahhudka hore waxay kamid tahay abcaash iyo fadhigeeda iyo salaada aalka nabiga lagu saliyo ataxiyaadka dambe iyaduna bacdiyaasha kamid tahay fadhigeeda 6daa weeye 6daasna qunuud ka yimaada marka 20 kaas weeye. marka culimadu waxay yiraahdaan see lagu suuraysanayaan qiyaamkii nin ka tagay macnaha qiyaamkii iyo wees wataan qunuudkii oo taagnidii qunuudkii waa la akhriyay taagnidiina waa laga tagay see ku imaanaysaa macna marka waxa leeyahay taagnidoo kaliya laga tagaa macna see lagu suuraysanaya waxa lagu suuraysanaya waa qof akhrisan hadli karin qofkan akhrisan hadli karin de qunuudka qadarkiisa uu taagnaanaya marka qadarkaas uu ka tagay saasa lagu suuraysanaya. abcaadu salaati 7 weeye التشهد الأول التحيات كهرة وقعود فدقيس والله والصلاة كسلين على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحيات كحديث إياه والصلاة كسلين على آل كالنبي صلى في التشهد الأخير التحيات كذنب التحيات كذنب النبي كسلين آل كالنبي صلى يا وحي كم أبعاش سجود سهو والوكب والقنوت قنوتك صلاة الصبح لقنوضه إياه وترك بشهر رمضان نسكذا ذنب ragcada u dambaysa witriga oo la qunuudo labadaas qunuud ba hadii laga tago sujuud sahwi waa la sunneeyaa laakiin qunuudka naazilada markii musiibooyinka iyo abaaraha iyo wax dhacaan waa ta la qunuudo salaadaha waajibkaaga ragcadaha u dambaysa lagu qunuudo marka qunuudkaas haduu ka tago sujuud sahwi ma leh qunuudka naaziladu maxaa yeelay qunuudka naaziladu salaada kamid maaha waa sunne ku dhex jira in la qunuudo naazilada markay timaada la sunneeyaa shay sideeda ahaan salaadu way u leedahay ma ahan baa leeyahay
sunnatun fi salaati weeye laa sunnatun minha sunna salaada ka mida maahe salaada dhexdeeda in lagula yimaadaa sunna ah marka qunuudkana isagu ma lahan sujuudi sahwi ma lahan abcaashana kuma jiro wasalaatu iyo wasalaatu kusallin iyo wasalaamu salaamid cala nabiy salaamu sala allahu alayh wasalam iyo waali aalkiisa iyo wasahbi asxaabtiisa fiihi qunuudka dhexdiisa intaasuu musanifku todobadaasu ka sheegay laakiin 13 baan ku darnayoo isku 20 weeye markaas 20kaa shay mid ka mid ah haddii laga tago sujuudu sahwi ayaa la sunneeyaa in lala yimaado faslun tabdulu salaatu bi14 khislatan halkaan musanifku wuxuu kaga hadlayaa raxmatullaahi calayhi waxyaalaha salaada buriya 14 buu halkan inuu ku sheegayaa tabdulu way budhaa asalaatu salaadu waa budhaa bi14 khislatan 14 nooc bay ku budhaa 14 nooc baa salaada ku budhaa alkhisla bikasri alkhaa annooc baa loo jeedaa axaduhaa 14 midkood bilxadai xadad baa salaadii ku budhaa xadad haddii la helo salaadii waa buraysaa walow bilaa qasdin ba xadadkaas ahaada waxyaalaha salaada buriye wey qofkii riix baa ka timid kaadi baa ka timid salaadii waa ka buraysaa isagoon kas ula imaanin bay ka fakatay waa lagu dirqiyey oo khasab inuu saga keena lagu kalifay salaadiisi waa buraysaa laakiin xadadkaas salaadu ay buraysaa ku buraysaay waa kuwii saliimka ah ee nabad gashanaa ee fayoobaa amaa qofkii salisulbowlka ahaayoo kaadidu iska soconaysay salaadiisii ku buri mayso kaayadaa soconaysa xadad kaloo ajnabiya hadduu yimid ka buraysa qofku markay salaadu iska soconayso oo salisulbowlka la yidhaahdo iyo wixii la midkaa gabadhi markii dhabar furan uu ku dhaco kale iyo salaaddii way tukanaysaa laakiin way taxafudaysaa way is-ilaalinaysaa markii intay weesadeeda iyo waxeedoo dhan muwaalaad baa raam horey ka weesaysanaysaa meelihii nijaasada wixii bay meeraysaa waxa meeli kadho intii ay xafidi kadho isku celin kartay karimo iyo xsaar saaraysaa ninkii sidaasoo kale kaadii intuu xanibi karo oon dhibaato ku keenayn buu xanibayaa markaas salaadiisi hore ka tukanaya ha timaada kaadi hadday rabto intaa uu salaada ku jiro ka buri maysa laakiin wax kale hadday yimaadaan oo aan wixii daa'imu xadadka ah markii hore soconayey waxaan ahayn oo ajnabi hadduu yimaado salaadiisi waa ku buraysaa wa biwuquuci najaasati baa salaada ku buraysaa najaaso dhicitaankeed xaggee bay ku dhacday jirkiisay ku dhacday amba dharkiisa in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan isla markiiba qofkii najaasaa ku soo dhacday amba dharkiisay ku dhacday isla markiiba haddaan la tuurin salaaddii way buraysaa in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan markiiba min hayri xamlina aan la tuurin qaadis la'aan iyadoo aan la xambaarin lana taabanin waa in markiiba la tuuraa nijaasa maradii kaga dhacday nijaasada marada kaga dhacday haddii uu markiiba iska tuuro iska hurgufo isagoo aan qaadinin xambaarin hoos gacanta ka gelinin taaban iyada salaadiisu waa u jidhaa nijaaso oo yaabisaa weye midda min hayri xamlinta laleeyahay hadday qoyan tahay ka waran hadday nijaaso qoyan tahay oo markiiba biyo lala gaaro biyo saa loogu shubo markiibana biyo dahiraya lagu shubana iyaduna la mid weeye oo markiiba caynteedii waxeeda masuulinaya oo dahirinaya wankishaafil cawrati cawrada feedankeeda baa salaadii ku buraysaa wabinkishaafil cawra cawrada feeditaankeeda in lam tustar haddaan la asrin xaalan markiiba qofkii cawradiisii baa feedantay dabayli waxbaa kor qaaday markiiba hadduu celiyo salaadu ka buri mayso laakiin hadduusa celinin markiiba salaadu waa buraysaa wanutqi wabinutqi bay ku buraysaa salaadii hadlid bixarfayn iyo 2 xaraf lagu hadlo qofkii 2 xaraf hadduu ku hadlo salaadii waa ka buraysaa 2 xaraf iyaysan macnaba lahaanine oo min oo kaluu yiri ama can 2 xaraf unbuu ku dhawaaqa 2 xarf macnaba yaan laga garanine aw xarfin binutqi ku hadlid bixarfin uu ku hadlo xarafkoo mufhimin wax fahamsiinaya xaraf macna leh wax fahamsiinaya buu ku hadlay sida ci oo kale minal wicaayati baa laga keenay qi minal wiqaayati baa laga keenay ficilada lafiifka awlada mafruuqa markii ficil amar loo bineeyo hal xaraf baa ka soo hara sida wacaayaci lam yaci ci buu noqonayaa marka dambe halka xaraf baa ka soo haraya ilaalina weeye oo dhowr marka xarafkaasoo kale hadduu ku hadlo salaad waa ka buraysaa camdan caamidan xaalu yaa kii u qastaya 2 xaraf kasb u yiri halka xaraf oo mufhimka kasb u yiri salaadiis waa buraysaa amaa hadduusa kas u dhihinin ee carabka ka dhaqay sabqul lisaan amba maahe waa mid jaahil oo inay salaadu ku burayso ma yaqaan waana jaahil macduura oo loo cudurayo oo meel ku barbaaray baciidan can culamada meel kafa ku barbaaray kaas waxaa loo cudurayaa ilaa 6 kalimaat 6 kalimo oo curfiye ah
6 كلمة هدو كبطه إسنا سلادي وكبرسا لكن هدو كس أولي ماذا سوى عالم أو سلادي إنها الكبرسو سلادي سوى برسا لبا حرف أما هالحرف وحفام سينية هدو سكس أهين أما جاهل معذور ويهي إلا 6 كلمات 6 كلمة أو عرفية بالو عذر داريا إلا أنت هدو كبضيو سلادي إسنا وكبرسا وبالمفطر عمدا وبتناول المفطر كوح أفريه قال شديسا سلادي كبرسا عمدا عامدا حاليا شيء مفضرة المفضر بفتح الفاء وكسر الطاء مع تشديده وير وحاول يفاض على كردقيا ضعنا ولا هصريا وانا شدنتها ولبا المفضر المفسد على الصائم سومه وشيء صائمك قفك الصوم صومك سكفس هذينيا كاس دو استعمالي عمدا كسنا او استعمالي سلاديس وبرسا وامحي وحبول لقى دغتو وحسك غلي waxyaalaha soo joofkiisa u waxgaareen de kasuna u sameeyay salaadiis waa burisa ka kacway shadoo ka soo sameeyay wal ukli bay ku burisa salaadi ukli ay al ma'kul ba loo jeedaa shay ma'kula al kathir ee badan naasiyan isagoo hilmaansan u cunay shaygan ma'kulka haduu kathir yahay naasina yahay salaadiis waa ku burisa soomku laakiin kuma buro soomku qofku isagoo wax hilmaansan haduu aad wax badan cuno soomku kama bureenin لكن صلاة هدو وحفر بدن عنه لو سناد هدو رويوس كور قيمة صلاة كبر سام فرقنا وحا ويا لأن لها هيئة مذكرة صلاة هيئة مذكرة بإلى مرك فكان تقصير فيها أشد تقصير حق لا ما يشاء الله سوى صلاة كجر هدو عنه فر بدن عنه صلاة الركوع استاق سجود اعتدال وحاسة هذا قفكي معناها قاب كلو قلا سيدي سعادي أما لكنك صومك صائمك hadduu wax badan cuno isagoo ilmaansa waa loo cuurdaaraya maxaa yeelay sidiisii hadda hay-a mudakira ma haysto wax xusuusinaya inuu sooman yahay marakan oo hay-a kuma dhex jiro sidiisa caadiga suuqu iska dhex maraya meeshu awal joogi jiray buu joogaa laakiin salaada qofku markuu galo qaab kale u gudbaya isagoo marka saas hadduu cunis fara badan isagoo hilmaansan cumo dee waxa isaga tacadiyey baa laleeyahay salaaduna waa ka buraysaa وثلاث حركات وبثلاث حركات بصلاة كبر صدح حركة متواليات أو حريرة ولو سهوا بها هذين هلمان بهولي ماذا صدح حركة هدو لي ماذا أو حريرة صلاة وكبر صدح ذا حركة وحال يرو وين حركات كاس خفيف أهين حركات خفيفة لملهن حركات خفيفة هاي على 10 سوون دقاجين يوفرت كريه دقاجي لملهن عرب كل دقاجي لملهن يوحي لمتك ذكر كيسار دقاق حمن كيس ترن كار دقاقي سوى سلاد كجرة لملهن صدح جاري قبل مهار دقاق دور وين دقاقاسي وين خفيف أهين وإن متوالي متوالي عشان إنه حريره صدح دقاق اسكو حجارة marka intee mutawaali ku noqonaya waxay leeyihiin culimadu wuxuu mutawaali ku noqonaya biqadri tumaaniinati tumaaniina qadarkeed wax ka sareeya haday tumaaniina qadarkeedii wax ka sareeya haday u dhaxayaan mutawaali ma waa in tumaaniina wax ka yar iyo u dhaxayaan tumaaniina haday biqadri subhanallah bay haydo dhaqdhaqaaq la'aana hadii tumaaniina qadarkeed wax ka yar ay u dhaxayaan waa mutawaali laakiin tumaaniina qadarkeed wax ka weyn baa u dhaxaya marka mutawaali ma qaarna waxay leeyihiin ma mutawaali wuxuu noqonayaa hal ragcada haduu ku wada dhaco hal ragcada haddii saddexdan dhaqdhaqaaq ku yimaadaan gudaheeda waa mutawaali haddii laba ragcadood laakiin ay kala gasho mutawaali ma waxa kale oo shardiya oo saddexdan dhaqdhaqaaq loo shardinaya cudurdaar inuu sakeeninin haddii cudurdaar jiro salaadi burmayso cudurdaarku muxuu yahay waxa weeye ninkan shiddatu jarab cadda xoog lu qaba iscun xoog lu qaba بألا يقدر معه على عدم الحك إنه إسحقمه ما جوي كره بيسعون عنايا سلاد أنتو كجرو إنه إسحقمه ما جوي كره ninka macduur weey oo loo cudurdaariyo haduu hadda saddex dhaqaaq iyo xoqitaanka u sameeyo waa loo cudurdaariya marka saddexda lugta hadii la qaado waa kow hadii la soo celiyana laba weey laakiin gacanta waxa leeyahay hadii inta meel saa loo qaado hadana lagu soo cesho kow baa la xisaabaya ama lugta iyada markii la qaado kow way noqonaysaa hadii la soo ceshana laba laga tirnaya وثلاث وبثلاث حركات بكبر حركوين وصدح متواليات حريرة ولو سهوا هذين هلمان هام بهولي ماذا والوثبة يكبر سلادي بوتو الفاحشة إفالح الفاحشة وصفة شفاوي بود سيدي هذا بوحنتا بود سلاد دحده دعدي ويفال حنتا مركز سلاد دحده يسوي كجرو هالمربودي يكل جيسا دقاقية سلاد وبرسا والضربة يكبر بالضربة قراعتان المفردة أحد قدوب قراعتان حد قدوب ليمين سلادي سوى برسا نكاس ومتجاوزة الحد حد دافتين سلاد وكبرسا
وزيادة ركن وبزيادة ركن بيكبرسا ركن لزيادتي فعليا أو فعل عمدا كسر زيادة ركن فعل كس ليم زيادة ركوع ليراد ليم سجود صدحات بقدر سجوديه مركو لبا ليم صدحات كسدر كسبون اسمي صلاة بدي وزيادة ركن لزيادتي صلاة كبرسا فعليا وشرطي وإنه فعلي كي قولي هذا بحي هذا فاتحة مرة سوء عليه صلاة برو ميس لكن لمرة إنه سوء عليه هذه فاتحة إنه سوء عليه لمرة دي فاتحة وآخرستي هدو صوح كخل ضمين إنه سوء عليه ما صلاة هذه برو ميس لكن فعلي إنه يا شرطي عمدا كسنا وليمد هدو سهوي هنا سجود سهو الله صنع يا الله إيمانا يا صلاة برو ميس كاسو لغير المتابعة متابعة وين سكين لكن متابعة هذه كانت زيادة بها هذه لما لهم بالله متابعة الإمام إمامك إنه مدو سكر راعين وإنه لكن مدو إمامك كر راعي زيادة هدوه لما لهم متابعة ساوضتها والتقدم وبالتقدم يكبر صلاة هرمر على إمام كيس بالركنين وكله هرمر فعليين أو فعلة يا والتخلف قدال المر به ما لبدي ركن وكله قدال المر بغير عذر لبدا بيطلع عذر دار الآن إمامك هدو عذر دار الآن كله هرمر لبر ركني أما كلا قدال المر عذر دار الآن صلاة دي سوى بريسة تقدمكم حون قنايا إمامك أو تاجن بور ركوعي وأنا سوء اعتدالي مرة إمامك ولي تاجن سوء اعتدالي وهو يلا ركن إمامك الله هرمر اللي حتى ركنين كاسي قصيرين هاي ركنياش جاما الله ترنيا اعتدالك يجلس بيرجتين لو الله ترنيا محيا لو حكوا كلفة يا مجران لكن هدي عذر ترجرو الصلاة كبر ميس ما صلى الله حسابي عليه لبضاس ما الله ترنيا أوام عذر دار كوبا إلو بيبا هلمان باكين مركاسو اسكلا هرمرا لبا ركن بو الله هرمرا تخلف كون واساسو كله هدو إمامك كغدال مرو لبا ركن كلا هرمرا غدال مرو عذر دار الآن صلاة كبرسا أوام حي إمامكي با ركوعي اعتدالي اسنا ولي waa taagan yahay sujuud buu hoobto marka imaamku sujuuda uu hoobtay ninka salaadu waa ka burisa wax cuurdaar haduu sahay cuurdaar kama maxay cuurdaarkan waa badan yahay mar haduu takhalluf yahay cuurdaarku waa badan yahay dhowr iyo 10 baa la gaarsiiya waxa kamid ah cuurdaarkaas waa badiul qiraa'ah waa ni arab culus imaamkiisuna imaam degdeg ama waa imaam mutawassita imaamku haduu imaam yahay had gudub qiraadiisa to hal mar dhamaynayaba qofku masbuuq uu noqonaya markaas imaamku waxa weeye imaam mu'tadil wahay isaga marka qiradiisa dib dhacaysa marka faatixadii buu la soo rafanaya imaamkii faatixadii waa dhameystay waa rukuucay sami'a Allahu yiri inta wili faatixadii soo akhrinaya isagu ama ma he wuu ilooba meel wax ka haysteen ba imaamkii wixii oo dhan waa ilooba waa iska taagan yahay imaamkii waa rukuucay waa ictidaal kaas waxa loo cudurayaa ilaa 3 rugni oo dhaadheer rukuucda iyo sujuudda hore iyo sujuudda labaad ictidaalka iyo julus been siteen loo tirmayo labada rugni loo tirmayo 3 rugni ba ka loo tirnaya 3 rugni hadii imaamku la yimaado isna wali uu taagan yahay imaamku meeshu marayo kala qabsanaya bas weey isagoo wali taagan ba imaamkii rukuucay ictidaalka loo tirmayo ko sujuudi hore labo julus loo tirmayo sujuudda labaad 3 sujuudda labaad hadii imaamku gaaro oo soo rukuuco isna soo daba soconaya laakiin hadii wali uu taagan yahay imaamkiina sujuudi ka soo kaco meeshaas uu kala qabsanaya ragcadaasna waa dhaaftay ونية قطع الصلاة وبنية قطع الصلاة صلاة قوينتي ذا نية سشدة صلاة كبرسة صلاة إنه كبح نيستي صلاة كمجره وكذا غنكاس وتعليق قطعها قوينتي ذا حريد ذا صلاة كبرسة بشيء وكحري وحيصير شيء وكحري صلاة قوينتي ذي هذا المركو كسواء أمره صلاة كبح بيه مركاسو صلاة كبحيا والتردد إنه نقش في قطعها وكون نقولنا صلاة كبحيا ما كبح ذا مسوى كسي جدا بيصير صلاة سنة كبحيا صدق ذا الرماد بصلاة وبرونيان ونية قطع الصلاة صلاة قوينتي ذا نية شديدة صلاة إنه كبح نيستي صلاة وكبحيا انت سنية سو كبحيا وتعليق قطعها بشيء صلاة قوينتي ذا كحريد هذا بشيء وكحرنا صلاة كبحيا وحير شيء مركو يماده ما صلاة كبحيا ولو شيء يصحسين هدور سنة صلاة كبحيا والتردد في قطعها أنا هاي تاي كنا نقش ما كبحدا مثل كمان مثل إسكديسا وكتردد استمرار كنا وعلمد مسكسي ولا تام مثل إسكديسا مركز صلاة دي بوليسا صدق هذا حاله والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.